بعد صحافة يجودها مركز شرطة كله وعنكو سلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب runtii aad iyo aadaan idinku mahadcelinayaa waqtigan aad la siiseen naguna weydiinaysaan muxuu ahaa ii sheegay su'aalaha waxaan rabaa markaa inaan ku soo koobo inta markaa aan is leeyahay runtii way kaa qusaysaa way kaa taabanaysaa ka taliya ahaan waxaan rabaa inaan hormaro su'aalihii ahaa Xildhiban Odawaa wasiirkii hore arrimaha gudaha ahaa 4 su'aalood oo su'aasha koobaad ah ee ciidanka qorqor ee la geeyay meesha la yiraahdo maxay ahayd ii sheegay kuusan reeb galmudug ciidanka qorqor waa ciidan kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa qayb kamid ah ciidamada danab loo soo tababaray sida gaarka ah waxayna kamid yihiin waajibkan ay su'aasha jawaabina ee ka kala baabida kala aad ma ninkaas uu ka jawaabay jawaabina Xildhibaan adoo mahadsan inaan dhameeyo ogolo sababtoo ah xildhibaanadu waxaan ka codsanaynaa markay hadlayaan ay ku jawaabayaan wasiirka iyo taliyaha loo daayo aniga hadal weydiin ay wax ka jawaabayaan laakiin xildhibaan adoo mahadsan aad kuugu mahadcelina laakiin waxaan rabaa inaan adoo iga raaliya inaan kuu sheego su'aasha muxuu ahaa ii sheegay saddexaad iyo su'aasha koobaad ayaa iska hor imaanaya saasaan ugu soo celiyey mar waxaad la weydiisay su'aala deegaanada galmudug maxaa looga sameeyaa howlgallo marna waxaad la weydiisay maxaa ciidanka loo geeyey haddii aan ciidan la geyn marka yaa howlgalka ka samayna sababta aan ugu soo celiyay xildhibaankayga qaaliga ah horta waa sababta marka sida aad la socotaan deegaanada galmudug waxaa ka socday muxuu ahaa ii sheegay abaabul waxaa ka socday muxuu ahaa ii sheegay aruurin in ciidamo badan lagu tababaray sida aad la socotaan dugsigii harqaboobe waxaa ka socda sidaada ayada xananbuur in sidoo kale ciidan lagu tababarayay waxaa sidaasoo kale ciidankii lagu tababarayay beledweyne ee ka mid ahaa qaybta 7-aad ayagana loo wareejiyay qaybta 11-aad oo lagu daray ciidanka ku jira harqaboobe ciidanka qorqor ee la geeyana kuwaasay horta waajibka la wadaagaan taas waa taas marka waxaan isleeyahay wax muxuu ahaa ii sheegay hadda gaar ama issue gaar inay tahay uma malayna waxa ay fulinayaanna waa waajib iyo tilmaamaha muxuu ahaa ii sheegay madaxda qaranka oo dadku ka mid yihiin wax ka gaar oo ayagu ay fuli karaan inay jirtaan uma malayna taas arrinta labaad ee heeday howlgallada ka socda shabeellaha hoose ciidanka halka la geeyay ma aysan saameyn anaga muxuu ahaa ii sheegay hogaaminaynay haddana anaga yaa joogna marka ciidamada sida aad la socotaan howlgalladoodu waxay ku salaysan yihiin marxaladda markaa jirta iyo xaaladda markaas taagan gobolka shabeellaha hoose labada shabeellada iyo jubbooyinka qaybo ka mid ah sida aad la socotaan waa dhul carro madow waxaa lagu jira xilli roobaadkii howlgalladeennii socda waxaa hakad geliyey cimilada lagu jiro xilli roobaadkii lagu jiro taas ayaa hakad gelisay ayadana muxuu ahaa ii sheegay sidoo kale gaabis lama gelin meelo kale oo dalka ka mid ah ayay howlgallo ka socdaan ayadana waa u diyaargaroobaynaa cimiladu markay noo saamaxdaan howlgalkaas meeshiisa ku sii socodaya ilaahay dhigis ayadoo sida iyo si ka wanaagsan ah arrinta muxuu ahaa ii sheegay su'aasha saddexaad oo heeday deegaanada galmudug maxaa shabaab loogu xiray ilaahay ama maxaa muxuu ahaa ii sheegay howlgallo looga geli ilaahay xildhibaankayga qaaliga ah diyaargarow weeriyaan ku jirnaa marqaatina waxaa ka ah waxaan hadda ka wado waxaan rajaynaa ilaahay dhigis marka howlahaas oo inoo dhamaadaan inay muxuu ahaa ii sheegay ayaduna ay dhici doonto waxaa ugu dambaysay arrin heeday xoogga waxaan isleeyahay taas wasiirka ka jawaabay waxa hadda gaar oo aniga ay qusay ma ahan waxaa ku xigay xildhibaan saabir oo ahaa istaafyada su'aasha koobaad arrinta istaafyada waxaa dhowr mar lagu soo celceliyay amarka yaa bixiyey amarka horta waxaa bixisay xaaladda dhacday ayaa amarka
bixisay xildhibaanadayda qaaliga ah waxaan ka fikirayno waa amniga dalka waxaan ka fikirayno waa amniga madaxda qaranka ee adugu aad tihiin sharci dejinta ugu samaysay waxaan dhahay ilaalayaashii waxaan bannaanka u taaganaha waa adinka askariga jidka taagan ee laamiga rugaxmin iyo maalin waxa ugu taagan yahay waa adinka qalad marka shaqo lagu jiro boqolkiiba boqol wax walba saxay noqonayaan lama dhihi karo way imaan karaan dhaliil way imaan kartaa qaladaad laakiin waxaa muhiima sida lagu sixi lahaa in la fiiriyo arrinta ayada ah waxaad la socotaan irinka kashmiir SYL area SYL waa dhacdadii shanaad amba lixaad oo ka dhacaysa laba dhacdooyinkaas ka miduhu waxay ku dhaceen sida hadda dhacdada ugu dambaysa ay ku dhacday dad isu soo ekaysiiyey ciidamada amniga oo lugaynaya